أبو هي أبو راديها كل مية إيسار إينا كان هيا أبو warkaan kooxdu ku doodo marka ay ka hadlayso midba koona la aado KNN ka deyso leeyahay Kalamaan oo kumanaan ku dhageysto adiga kulanow marka ay ka dis joogto nin ku fiican ahaaye bulshadan koranaysa bal maxay ka heshaa arin ay la kurbooto ka shiilaabta gubaysa ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kalarkiya markay jaamac kulaado kulmiyo tabinaysiyo Kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraado kaniin bay noqotay dawo ay ka badaane maxaa loo koran waayay ka haddaan ka ogaadi ileen waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo daawo ay ka badaan yaa salaam inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday Kalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday Kalamaan KNN ها والله جيك ولا هوس فدادي odoogi maguna ayakooy oo dhinuhu shabeelle hoos oo jano hiyo kooy warkan sinayow hinta wara idin siiyo ani baryahan geetan waa ka maqnaay marka hadee min awsmaa meesha laayan jiri marka maanta ka soo baxi marka ka soo bilaab afgooy imaaw busti afgooy ka soo beebto marka inda ka duugeysa halko qofaad iska dhaafe halko geed xataa wasoo waay hinda ana marka waxaan la yaabana maanta on ka fikiray dadkii meesha degnaayeen intay aadeen malcuni maldamay mudinta ilaa hadwa waasiya maalmi igu sheegtiin warkoo maqana nooraadan kuwa jooga wax loo laayahay hinda ana buula jaana ka soo lugay shalan boolan imaadi buufa wal soo mari eel wareego wal soo mari lambar 60 wal soo mari lambar 50 soo mari ilaa iyo anta wixii tuul abdo duwiil ku dar intaas afgoo ilaan ka imaado wax buwa soo waay anta kam dakum waay war wax ma ogida dabka habbe meesha madaxweynaha lagu soo dhaweeyay waa galmudug Puntland shaladii hore ka yimid madaxweynuhuna wuxuu yiri gaalkacyo nabadda Soomaaliya ka bilaabanaysa oo aas u noqonaysa arwidaadku waa meelilka hay mooshana gaalkacyo nabadda ku bilaawadaasa alaan ashiti ma ka soo dhashay weeye war hatta halku madisa ko taba yama era doonana dagaal kama daro aan dagaalno waxaan dagaal ahayn badaawo laguwa warnamada Jubbaland waxa la yiri wariya hadli kara iyo qof siyaasadda fakar ka dhiiba kara midna laba ogolaa la yiri marka Kismaayo iyo waxa la yiri bu'aale isku mid weeye midaad joogta xorriyada qowlka war may ba dheega jiray afka hirooyimis afgoysee waa dheega jiray reed may ka bedeleen ka aalay jooga isku dhiin hadii kala jamaamaad wariya meesha dawladka caana ka curatay waranu kisbayeen hada war waa Kismaayo kistaada war ma haysiine amma dinka la yiraahdo mutun waa ka taageer badan yahay yaa khayo balwaana ka fiican ka taageer badan in wadiya wax ma ogtiina wadiya sheekh imaamka ah masaajid ku yaala dalka Kenya oo magaciisa la yiraahdo Sheekh Adoya Buufi oo shabaab u qori jiray dhalinyarada ku nool dalka Kenya ayaa gacanta lagu dhigay kadib markuu inkirina dhalinyaro uu qoray oo shabaab u dagaalamayo la soo qabtay ayaa waxay sheegeen inuu qoray ninkaas marka Sheekh Adoya haduu shabaab qorayo Kenya anaga maxay darbiga ugu wareejinaysaa war darbiga waa Israa'iil waxa ku wareejiyay Falastiin dhulkooda inay rabtaa inay ku dhacdo war Donald Trump marka laga shakiyay waxa loo geeyay dhaqaatiir waxa ninka ka bartaan cudurka waalida marka waxa la yaabay inuu waaliya ninka u jeedaane maxay ka baareen lacagta uu khasaaranayaan warniyo Donald Trump waalidiisa oo balasna masabi balas waay warninkan daaweeye adigoo dhagaxa joogoon dhibic haysan biyaa kan kale oo dhagax joogo dhaliya kuugu xigaana in la dhaansada diiday oo ceelashii dhacan saaray ma halaysla dhintaa muxuu dheefahaya wallaahi eedan dhibinaytan hoogasaas biilaansiin hayti war madaxweynaha Soomaaliya markuu gaalgacay yimid hal calanka Soomaaliya ku sawirna la siiyay war labadii faraso madaxweynaha la siiyay diyaarada la soo saaray wallahi hash laga tay karin oo billahi hash laga tay karin war hal diyaar ma qaadeen burufa la soo saaray war odagu sanadkan geel iyo gamaanu soo helay miyaa fiido waxani wajha أنا جمال ما كشاية أنا وحان كشاية صدام باتني شبع الحديد لان كشاية أخاف شغل الشيء اللي يجي لكن جمال الشيء دوش إنه محل ده warayaantan mucaaradkii iyo muxaafadkii siyaasadda isku haystay waa laga nastay ma baarlamaanka la isla sugaya oo siyaasadda safar ku maqan tahay war madaxweynaha Cabdi Qibdiya gaalkacay ku soo dhaweeyay war waan ognahay boosaaso faroola ku soo dhaweeyay war waan ognahay inuu Salaad Cali Jeelal la socdo madaxweynaha war diktar Shaakir dhus marab ku sugo hayo nimiya maysiin warsaday dekada ay maareeyay ka abdi jiino roobe maslan kala war Turkiya haysta dekada tuura ka soo baxday war odayo raala imaarada haysta dekada war
xilligii calwasaadkaad gaarteene calooshu haydin wareegtay horteeda ka kaca war anaga soo lugayna tacbaan dalna buuqin iyo inta bixi meesha naga taga madaxa kala idinka wadaayay dadkaada waaysantaa mar ma ko jiraan tartiibka soo tartiibka wallahi mar dambe hadaa aflagaadeen dhahaga u arkaysaa wallahi billahi كله